halkan waa xanta wararka ku soo biirow ka mid noqda daawadayaasha ku xiran halkan waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinku soo gudbin doono daawadayaal saaxiibayaal waxa ka mid noqon doona Axmed Cabdi Kaariye Goorgoor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ma faa'iiday miswaaqa saaray marka loo eego xubnihii dagaalku ku qaaday kana soo tuuray kuraasta baarlamaan ee Galmudug oo iminka xilka ugu sareeya ka haya dowladda iyo xukuumadda cusub ee la magacaabay barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa Goorgoor oo xaalkiisa loo sahal yahay warar baa jira sheegaya in mooshin ka dhana xukuumadda cusub ee baarlamaanka la abaabulayo durbaba waxaan idin soo gudbin doonaa hadalheen iyo buuq xooggan oo ka socda magaalada caasimadda ee Muqdisho barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa hadduu alweyn raalow ka noqdo daawadayaasha sida tooska ah inoogu xiranow sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aanu ku falanqeyn doono waxaa ka mid noqon doona saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inoogu xiranow wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo war ka soo saartay banaanbaxyaasha ay ku baaqeen mucaaridku qodobada ayaa kuwa kale ayaa daawa doontaan soo dhawaada halkan waa xanta wararka ku biiro ka mid noqda daawadayaasha ku xiran halkan Goorgoor miyuu faa'iiday miswaaqa saaray daawade madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Goorgoor ayuu mar kale waagu ku bariyay kadib markii shakhsiyaadkii labeenta siyaasadeed ee reer Galmudug ahaa ee uu ka hor istaagay inay u tartamaan kuraas baarlamaan ay ka mid noqdeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee shalay lagu dhawaaqay isaga oo u adeegayay kooxdii hoggaanka u haysay xilligaasi dowladdii hore ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ugu horeeyaan ayuu isbaaro siyaasadeed u dhigtay ama shakhsiyaad matalaadooday muhiim u tahay reer Galmudug iyadoo ay ujeedadu tahay in xubnahaasi laga fogeeyo darka siyaasadda maadaama Farmaajo uu arkay inay kursigiisu khatar ku yihiin shakhsiyaadku Goorgoor iska markaasi surstaagu ku sameeyay waxa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenkii hore aqalka sare Abshir Maxamed Bugaari gudoomiyihii hore ee xisbigaasi Daljir Xasan Macalin Maxamuud Sheekh Cali iyo wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi kuwaas oo hadda lagu tilmaamo milkiilayaasha dowladda dhammaan xubnahan waxay ka tirsanaayeen baarlamaankii 10aad 5 sano iyo dheeraadkii uu Farmaajo xilka hayay waxay u taagnaayeen dheelitirka dowladda Bugaari wuxuu markaasi uu lahayo u ahaa go'aanada aqalka sare halka Sheekh Cali iyo Fiqi saameyn xooggan ku lahaayeen xarunta golaha shacabka oo xilligaasi ahaa gole inta badan u afduubnaa Farmaajo golihii shacabkana lagu tilmaamayay Goorgoor oo ahaa ul Farmaajo Fahad Yaasiin ay dadkiisu u adeegsadeen sida lagu eedeeyo wuxuu istaag waayay shakhsiyaad ay ka mid yihiin Mahad Salaad Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Odowa Maxamed Abuukar Jacfar iyo kuwa kale hadda raggii uu markaasi isku horgooyay ayaa ku biiray hoggaanka dalka xilli ay sanad iyo 6 bilood u dhiman tahay isaga Goorgoor oo aan Farmaajo la'aantiisa darka siyaasadeed cagta saareen ayaa la colaytamay shakhsiyaadka isku dhariga siyaasadeed yihiin yolkeedii marka la eego curfiga siyaasadeed ee Soomaaliya oo gelin baceen ah Goorgoor wuxuu waqtiga xilkiisa ka dhiman gacan ku gumbad ka ahaan doonaa Axmed Macalin Fiqi iyo Abshir Bugaari Xasan Macalin waa saddexda shakhsi ee waqti ugu badan geliyay dib u soo laabashada Xasan Sheekh Maxamuud waxay hore uga tirsanaayeen Daljir waxay ahaayeen kooxdii Farmaajo ka caawisay guushii 2017 hay'ashee abaalgud kama helin taasi beddelkeeda Xasan Sheekh ayaa si weyn u sharfay kaalintoodiina maamusay Axmed Goorgoor abaal siyaasadeed uma ergana kooxdii uu la dagaalamay sabab la xiriirta in Farmaajo mucaarad ku ahaayeen ayaa maanta talada haya waliba sida la saadaalinayo kooxdaasi dhexdeeda ayuu ka imaan doonaa madaxweynaha xiga ee Galmudug oo isaga loo boobay sida lagu eedeeyo 2 sano iyo 6 bil ka hor xilligaasi oo ay muddo u dhinaa Axmed Ducaali Geele Xaaf laga faramaroojiyay mooshin ka dhana xukuumadda cusub oo baarlamaanka laga abaabulayo sida xogaanu ka helino xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa diyaarinaya mooshin ka dhana xukuumadda cusub ee magacaaban taasi oo hortagaysa golaha shacabka xildhibaanadan oo u badan kuwa ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya
iyo Galmudug ayaa diidi doona golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabay shalay, iyagoo sheegaya in dad gaar ah lagu qanciyay xilalka xukuumadda lasoo dhisay. Mooshinkan ayaa waxaa la ogeyn inay ka gudbi doonaan xukuumadda oo ay codka kalsoonida heli doonto, mise waxay qaadi doontaa xukuumadihii hore waddadii ay mareen qaybtood oo la diiday kalsoonida laga hor istaagay. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Sacdiya Samatar ayaa la sheegay in xildhibaano ay horboodayso qayb ka yihiin mooshinka xilli Gudoomiye Aadan Madoobe oo xubno ku yeeshay xukuumadda cusub isaguna uu codka kalsoonida raadinta ku mashquulsan yahay. Warar hoose oo aanu ogaanayna ayaa sheegaya in Xamse Cabdi Barre uu codsaday inuu la kulmo xildhibaanada Golaha Shacabka ka hor inta aan xukuumadda la horgeyn si ay kalsoonida ugu qaadaan. 18 sano ka hor 2004 xukuumaddii ku-meel gaarka ahayd ee ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi ayaa loo diiday codka kalsoonida xilli baarlamaankii Soomaaliya fadhigeedu ahaa Nairobi ay hor istaageen. Si kasta oo xaaladda noqoto, durbaba mucaaradadan ay foolanayaan xubnahaasi kadib magacaabidda golaha wasiirada cusub ayaa la sheegayaa in dad badan ama xubno badan oo saadaalinayay in liiskaasi looga yeero aanan loo yeerin oo aysan ka mid noqon, taasi oo la sheegayo in markaasi ay keenayso in xubnahaasi ay iyagu markaasi qaadaan adhabahaasi. Gadaalka riixis badan ayaa jirta sida la sheegayo, gadaalka riixistaasi oo ay markaasi riixayaan xubno ka mid ah madax goboleedyada dalka, kuwaasi oo doonaya in markaasi xukuumadda la qalqalgeliyo sababo la xiriira in durbaba markaasi dhaqdhaqaaqooda gorgortan lala galo. Sidoo kale doodo xooggan ayaa ka dhex jira xubnaha iyo dadku markaasi iyagu dirirtu ka dhex taagan tahay ee markaasi loolamaya. Xildhibaan Sacdiya ayaa ka mid ah dadka dirirta wada, sidoo kale waxaa ka mid ah Qoorqoor iyo Laftagreen sida lagu eedeynayo ama la sheegayo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland ayaa war ka soo saartay banaanbaxyo ay ku baaqeen mucaaridka. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa shir gudoomiyay shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah golaha wasiirada, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ugu horeeyo taliyaha booliiska, maayarka magaalada Hargeysa iyo gudoomiyaasha degmooyinka caasimadda. Ugu horeyntii, madaxda ka soo qayb gashay shirka ayaa ku lafa guray xoojinta amniga magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Somaliland xilli laga cabsi qabo in halkaasi ka dhacaan dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda uu hogaamiye Biixi. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Axmed Kaahin ayaa faray hay'adaha amnigu inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo isku dayda inay waxyeello ama qalqal geliso xasilloonida iyo nabadgelyada Somaliland ku naaloonayso, taasi oo ah mid aan ciyaar ku imaan ee ku timid dadaal iyo nafur, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri cid kasta oo isku dayda inay amniga wax u dhimaan iyaga oo ku soo dhuumanaya mudaharaad sharci darro ah, tallaabo sharci ayaa laga qaadayaa, wixii ka yimaadana waxaa qaadaya mas'uuliyaddeeda ciddii soo abaabushay. Ugu dambeyn, wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland ayaa shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada kana fogaadaan cid kasta oo wada dhibaato lagu waxyeeleynayo nabadgelyada. Xisbiyada mucaaridka Somaliland ayaa ku baaqay inay qaban doonaan isku soo baxyo ku dalbanayaan doorasho inuu qabto madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay ku eedeeyeen inuu wado muddo kororsi, doorashadana uu ku qabto xilligeeda, balse xukuumadda uu hogaamiye Muuse Biixi ayaa iska diiday eedeymaha ay u jeediyeen mucaaridka kana hor yimid in la dhigo dibadbaxyo, taasi oo iyana ah waxyaabaha ugu waaweyn ee buuqa ama xiisadda sare u sii qaadayo. Si kasta oo xaaladda noqoto, si weyn ayaa la iskugu markaasi maandhaafsiisan yahay xaaladda Somaliland, iyadoo mucaaradku ay doonayaan in la qabto doorasho halka xukuumaddu ay riixayso axsaab badan doorashadana dib loo dhigo, taasi oo ay mucaarad ku diidan yihiin. Halkani waa xanta wararka, fadlan nagu biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran adiga oo la garanaya sidoo kalena share garanaya qaybta hoosan araahdaadu waxay kula tahay siinaya daawade ama ka dhiibanaya
nabadino.